Iiraan waxay kaloo hawlgelisay cutubyadeeda qaabilsan dagaalka internetka kuwaasi oo ku guuleystay inay damiyaan oo khalkhaliyaan nidaamyada difaaca Israa'iil iyo korontada dalkaas sidoo kale isgaarsiinta ciidamada Israa'iil raadraaca gantaalada ee loo yaqaan radar system droniska iyo diyaaradaha militariga. dagaalka Iiraan iyo Israa'iil wuxuu galay weji cusub. Israa'iilna waxay qaaday weerar ballaaran oo ay ku bartilmaameedsatay xarumaha bacriminta uraniumka ee ugu horeyso Natanz saldhigyo militari oo ku yaala magaalooyin badan sida Tabriz, Hamadan iyo Shiraz, sidoo kale qaybo ka mid ah Tehran oo ay markaasi ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan Iiraan. weerarkii Israa'iil oo loo bixiyay Operation Rising Lion waxaa loo adeegsaday in ka badan 200 oo diyaaradood oo dagaal oo ah kuwa ugu casrisan, gantaalo casri ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo nooca droniska, nidaamyo weerar oo sirdoon oo ay Mossad ku rakibeen gudaha Iiraan. waxay Israa'iil halkaasi ku dishay General Hussein Salami, taliyihii guud ee kacaanka Mohammed Baqari, taliyaha ciidamada qalabka sida Amir al-Hajizadi, madaxa ciidamada cirka, iyo waliba 9 saynisyahan oo hormuud u ahaa barnaamijka nukliyeerka Iiraan. dhinaca kale Iiraan ayaa si degdeg ah uga jawaabtay iyadoo hawadeeda ay ka duuleen in ka badan 200 oo diyaaradood aan duuliye lahayn, gantaalada kuwooda ugu khatarsan ee ballistic missileska ah oo ay ku jiraan Fatih 110, Desful iyo waliba Khaybar Shekan oo noqonaysa in ka badan 160 gantaal oo hawada loo diray marka lagu sii daro ku dhawaad 40 ka mid ah gantaalada cruise missileska oo ay ku jiraan gantaalada kuwa khatarta ah ee Bafeh iyo Mashhad. Iiraan waxay kaloo hawlgelisay cutubyadeeda qaabilsan dagaalka internetka kuwaasi oo ku guuleystay inay damiyaan oo khalkhaliyaan nidaamyada difaaca Israa'iil iyo korontada dalkaas sidoo kale isgaarsiinta ciidamada Israa'iil raadraaca gantaalada ee loo yaqaan radar system droniska iyo diyaaradaha militariga. kooxda dagaalka internetka u qaabilsan Iiraan waxay direen signal been ah oo loo yaqaan decoy signals si ay nidaamyada difaaca Israa'iil ugu khasbaan inay rasaas ku furaan bartilmaameedyo aan jirin oo hawo ah, taasoo khalkhalisay nidaamyada Israa'iil. ujeedadu waa in la carqaladeeyo oo la joojiyo ama la khalkhaliyo qalabyada casriga ah ee militariga Israa'iil, taasoo Iiraan guul ka soo hoysay. dagaalkan elektarooniga ah ee Iiraan ku qaaday Israa'iil wuxuu saameyn weyn ku reebay Israa'iil intii weerarku socday, waxaana dhacday in qaybo ka mid ah nidaamka Iron Dome-ka iyo nidaamyadan kale ee difaaca cirka ay si ku meel gaar ah u joojiyaan shaqada. tiro badan oo ka mid ah droniska Iiraan ayaa si guul leh u gaadhay dhulka Israa'iil sababo la xiriira waxa afka qalaad lagu dhaho jamming and GPS spoofing. nidaamyada difaaca Israa'iil waxay awoodi waayeen inay si buuxda u dabagalaan dhammaan gantaalada iyo droniska weerarka ku jiray. tani waxay ahayd guul istiraatiiji ah oo Iiraan u suurtagelisay inay muujiso awood cusub aan horey loogu arag. Iiraan waxay sheegtay inay beegsatay goobo muhiim ah oo ay ku jiraan xarunta sirdoonka militariga Ammaan ee ku taala Tel Aviv. wararkuna waxay sheegayaan in dhowr gantaal ay gaadheen dhowr xarumood oo sirdoon. sidoo kale saldhigyada difaaca cirka gaar ahaan kuwa Iron Dome-ka iyo Arrowga waxay kaloo Iiraan duqeysay xarumaha hawada militari, tusaale Ramad David Airspace. sidoo kale xarunta badbaadinta nukliyeerka ee Doman ayaa la sheegay in waxyeelo soo gaadhay. wararka qaar ayaa sheegaya in dhowr xarumood si ba'an loo burburiyey inkastoo Israa'iil aysan si buuxda u shaacin khasaarahaasi. hogaamiyaha ugu sareeya talada Iiraan Cali Khamenei wuxuu si toos ah u bixiyay amar ah in Israa'iil laga qaado haybadeeda ciidan iyo sirdoon ay mar walba sheegato. wuxuu sheegay in weerarku yahay jawaab xanuun badan oo ku wajahan gardarada Israa'iil ee Gaza iyo dilalka siyaasadeed ee gobolka. haddii Israa'iil sii wado xasuuqa, weerarkan wuxuu noqon doonaa bilow kaliya. Iiraan waxay sidoo kale sheegtay in weerarkani ahaa isdifaac sharci ah oo ku saleysan xeerarka caalamiga ah. madaxweyne Donald Trump ayaa taageeray weerarka Israa'iil bilowgii ku qaaday Iiraan, isagoo sheegay inuu ahaa weerar guul leh. wuxuu sidoo kale digniin u diray Iiraan isagoo ku booriyey inay ogolaato heshiis nukliyeer ka hor inta aysan waxba ka hadhin waxa Iiraan haysato. dhanka kale dalalka Yurub oo ugu horeeyay Jarmalka waxay muujiyeen walaac iyagoo ku baaqay in la joojiyo colaadaasi. qaramada midoobay waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay korarka rabshadaha, waxayna ugu baaqday labada dhinac inay isxakameeyaan. haddaba haddii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan uu sii xumaado, waxaa ka dhalan kara saameyn weyn oo siyaasadeed oo ballaaran, mid dhaqaale iyo mid amni oo baaxad leh, gaar ahaan gudaha bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. waxaa dhici doonta in kooxaha ay taageerto Iiraan ee Xisbullah, Xuutiyiinta, Xamaas iyo weliba kooxaha Shiicada ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ay si toos ah u soo galaan dagaalka. dhankeeda Israa'iil waxay heli doontaa taageero militari oo ka timaada Mareykanka iyo xulafadeeda kale. waxaa laga yaabaa in weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ay ku faafto gobolka bariga dhexe, gaar ahaan saldhigyada dalalka Mareykanka iyo Yurub. xiritaanka marinka Hormuz oo muhiim u ah dhoofinta saliidda 30% wuxuu sababi karaa jahwareer dhaqaale oo dunida ah.
korarka qiimaha shidaalku wuxuu sababi karaa sicir barar caalami ah. suuqyada saamiyada stock markets ayaa laga yaabaa inay si xun uga falceliyaan. maalgashadayaashuna waxay ka carari doonaan gobolka bariga dhexe. dad badan ayaa guryahooda ka carari doona, taasoo keeni karta barakac weyn. geesta kale waxaa la isweydiinayaa waxaa ku dhici kara dalalka carabta ee taageersan siyaasadda Israa'iil. waxaa la sheegaa in shucuubta Carbeed ee caburinta ku jira ee dalalkaasi ku nool ee taageersan walaalahooda Falastiiniyiinta inay ka caroodaan xiriirka dowladahoodu la leeyihiin Israa'iil. waxaa dhici karta dibadbaxyo waaweyn, rabshado ama kacdoon bulsho. tani waxay halis gelin kartaa xasiloonida gudaha ee dowladahaas carabta ah ee Israa'iil ku xidhan. sidoo kale kooxaha Iiraan taageerto oo ay ka midka yihiin Xuutiyiinta, Yaman, Xisbullah iyo kooxaha Shiicada ah ee ku sugan dalalka Ciraaq iyo Suuriya ayaa laga yaabaa inay weerar ku qaadaan danaha ama saldhigyada dalalkaas carabta. waxaa dhici karta weeraro qarsoodi ah sida gantaalada ama droniska oo lala beegsado saldhigyada dalalkaas, garoomada diyaaradaha iyo weliba xarumaha muhiimka ah. dalalka carabta ee taageersan Israa'iil waxay wajihi doonaan cadaadis caalami ah, gaar ahaan caalamul islaam. waxaa hoos u dhici doona xiriirka ay la leeyihiin dalal badan oo muslim ah. waxay lumin doonaan hogaaminta siyaasadeed ee ay horey u lahaayeen. waxaa dhici karta oo laga yaabaa inay ku khasbanaadaan inay xoojiyaan ciidamadooda difaaca, korna u qaadaan miisaaniyadda militariga. dhinaca kalena dalalka Qatar, Algeria iyo Tunisia waxay si cad uga soo horjeedaan Israa'iil, halka Imaaraadka, Baxrayn, Masar, Sacuud Carabiya ay taageero toos ah iyo mid qarsoonba siiyaan Israa'iil. waxayna keeni kartaa khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladaha carabta dhexdooda, taasoo wiiqi karta midnimadooda. haddaba dhinaca kale, dagaalkani saameyn ma ku yeelan karaa dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya? haddii aynu ka bilowno dhanka Soomaaliya, waxaa laga yaabaa in kooxaha xagjirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish ay ka faa'iidaystaan qallalaasaha gobolka si ay u kordhiyaan weeraradoodii amaba u boonbooniyaan fadintooda. sidoo kale waxay isticmaali karaan colaadda Israa'iil inay ku qanciyaan dad badan oo cusub, iyagoo u sheegaya in dagaal diimeed uu socdo. dhanka Jabuutina, iyadoo la ogyahay in Jabuuti ay martigelisay tira saldhigyo ciidan oo caalami ah sida dalalka Faransiiska, Maraykanka, Shiinaha, Jabaan, haddii xiisadda bariga dhexe ay ku faafto marinka Baabul Mandab, Jabuuti waxay noqon kartaa meel istaraatiiji ah oo bartilmaameed u noqon karta weeraro droonis ah oo ka imaan kara kooxaha ay Iiraan taageerto. qiimaha shidaalka ayaa kor u kici kara haddii Iiraan ay xanibto marinka Hormuz ama ay dhibaato ka timaado suuqyada saliidda. korarka qiimaha shidaalku wuxuu sababaa sicir barar, gaar ahaan badeecadda la keeno dekedaha sida Muqdisho ama Boosaaso. Jabuuti waxay dakhli badan ka heshaa dekedaha iyo isticmaalka saldhigyada militari. haddii ganacsiga badda uu saameeyo dagaalka Iiraan iyo Israa'iil, waxay lumin doontaa dakhli badan. Jabuuti waxay isku dayi doontaa inay ilaaliso dhexdhexaadnimo, halka Soomaaliya lagu tilmaamo dal aan la isku halayn karin siyaasaddiisa. dhinaca kale, haddii Maraykanka iyo xulafadiisu ay cadaadis saaraan Jabuuti, waxaa laga yaabaa inay si dadban u taageerto Israa'iil. Baabul Mandab waa marin muhiim u ah ganacsiga caalamka, gaar ahaan haddii Iiraan ama xulafadeeda sida Xuutiyiintu ay weeraraan maraakiibta. waxaa laga yaabaa in maraakiibta ganacsiga ee Soomaaliya iyo Jabuuti loo baahdo in la ilaaliyo, kharashka gaadiidka badduna uu sii kordho. dadka muslimiinta ah ee ku nool labadan dal waxay la yaabi karaan ama ka falcelin karaan dhacdooyinka Falastiin iyo Iiraan, waxaana dhici karta dibadbaxyo ama dareen bulsho oo ka dhan ah Israa'iil ama xulafadeeda.